kale saraakiil ka kala socda toban wasaaradood oo ka tirsan xafiisyada dawliga ee dalka oo barbilow u noqonaya qorshaha barashada qaabka ugu habboon ee loo bixiyo qarashaadka dawladda gaar ahaan qaabka elektarooniga ee xilligan xukuumaddu si weyn muddooyinkii ugu dambeysay ugu fooganayd si meesha looga saaro dadka loo yaqaana caaglaha oo inta badan mushaharka dawladda ku qaata hab sharciga baalmarsan ay waxaa saaka si rasmi u furay agaasimaha guud wasaaradda horumarinta maaliyadda maxamed cabdi gurxan waxaana bilowga horeba halkaa ka hadlay amiin abshir agaasimaha waaxda IT-ga sidoo kale ifmaska ama maamulka xogaha maaliyadda xasan farax maxamed xidhiidyaha mashruuca dib u hagaajinta xisaabaadka maaliyadda ee BFM-ka waxaanay dul istaageen muhiimadda gaaraanada kulankan ku dugan iyo sida ay muhiim u tahay in si weyn loo wada dhigto barashada culumtan waxaan iskugu imanay inaynu bilowno maduulo kale oo kamid ah majuulada systemkan aynu naqaan systemka maareynta xogta xisaabaadka dawladda ee marka luqadda qalaad lagu sheegay la Somaliland Financial Management Information System loona soo gaabiyo SLFMIS inaynu wax weeyaan dabaqno ama aynu sii dhameystirno majuuliskii dhina ayuu tababarkeena daaray maanta agaasimo guud waxaan iskugu yeedhnay maanta 10 wasaaradood u horeeyay ee majuulis bayqol majuulka ama qaybta mushahar bixinta ee systemka nidaamkaas wuxuu maamuli doonaa dhammaan wixii la xiriira mushahar bixinta waxaan ku xidhnaan doonaa hadhow toole system ama nidaam lagu maamuli doono shaqaalaha dawladda oo ay soo wado hay'adda shaqaalaha dawladdu waxa meesha ka bixi doona ugu dambeynta ilaa account-ka qofka ayaa isku xidhnaan doona waxa ka bixi doona oo si toos ah meesha uga bixi doona dadaalo badan oo dawladdu sameysay awgeedna ka bixi doona insha Allah wixii loo yaqaan caaglaha ama dadkii gosweekaska ahaan jiray ee dawladda nidaamkeeda ku dhex jiray waayo nidaamka wuxuu sahlayaa qofka in la xaqiijiyo la taaban karo ilaa bank account-kiisa gurnaanadkan waxaa halkaa ka hadlaysa markaana si rasmi ah kulankan u furay maxamed cabdi gurxan agaasimaha guud wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaana daboolka ka qaaday in bisha saddexaad ee sanadka 2020 uu bilaabmi doono qorshahan loogu talagalay in hab elektarooniga kharashaadka dawladda loogu bixiyo waxaanu yidhi sidaan waxaynu maanta goobta u fadhinaa saddex achievement oo sanadkan la kowsaday fulintooda waa qodobka koowaad oo ah inaynu mushaharka shaqaalaha dawladda ku diyaarino inagoo adeegsanayna nidaamkan iswada ee ifmiska la yiraahdo markii ugu horeysay wasaaradda horumarinta maaliyaddu dhowrkii bilood u dambeysay ay iyadu isticmaalaysay wasaaradda horumarinta maaliyaddu tusaale u tahay barnaamij kasta oo aynu fulinayno inay fulintiisa iyo qaadashadiisa ay horsocod amba hormood uga noqoto wasaaradaha kale maanta marka waxaad bisha February hadii Ilaahay yiraahdo waxaynu mushaharka ku diyaarin doonaa inagoo isticmaalayna systemka qaybtiisa diyaarinta mushaharka taa micnaheedu waxa weeyaan wasaaradna yaani ku soo talagelin inay sidii manualka ahaa bisha February mushaharkeeda ku soo diyaarsato iyadoo xisaabaadka guud ku controlayo iyadoo qaybaha kala duwan ee kharash bixintu ay marayso oo dhan ay ku controli doonaan haddaba si aynu mushaharka si wanaagsan ugu isticmaalno ama ugu diyaarino systemkan waxaynu maanta u fadhinaa 10 wasaaradood sidii ay u qaadan lahaayeen tababarka ay ku soo diyaarsan doonaan mushaharka ee ifmiska waa taariikh runtii muhiim ah waa horumar weyn oo laga gaadhay qodobkan maanta aad u fadhidaan nidaamka dib u habeynta maamulka maaliyadda Faisal Maxamed Aadan Faisal TV-ga Somali Cable Hargeysa